Halkani waa qubuuro ay ku aasan yihiin in ka badan 800 kun oo qof oo hal goob iyo hal goor si wadar ah loogu xasuuqay. Sababta xasuuqooda ayaa ka dambeysay in ay ahaayeen dad Muslimiin ah, waxaana dhegta dhiigga u daray awaan meel iska dhigtay micnaha bani'aadantinimada. Waa mid ka mid ah isirsifayntii iyo xasuuqii ugu darnaa ee ka dhacay adduunka. Waxaynu ula jeednaa xasuuqii ka dhacay Bosnia oo aynu maanta muuqaalkeennan si kooban ugu sharxi doono goorta uu dhacay, sababihii ka dambeeyay, iyo qaabka uu u dhacayba. Magacaygu waa Cabdiraxmaan, halkanina waa Josir Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeennan maanta. Markii uu burburay Midowgii Sofiyeetku, waxaa dalal badan oo caalamka ah ka bilowday duufaanno burburiyay wadamadii ka dhaqmi jiray Midowgii hanti-wadaagga ee uu hormuudka u ahaa Midowgii Sofiyeetku. Dalweynihii Yugoslaafiya waxa kan ugu awoodda badan dalalkii dhacay jasiirad-lamoodka loo yaqaano Balkaniska. Yugoslaafiya waxa uu ahaa dal ay wada samaysteen boqorradii ka jiray Balkaniska sida Croatia, Serbia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, iyo Macedonia. Taageerada hoggaan ee dhinac walba ah ee uu ka helayay Midowgii Sofiyeetka ayaa Yugoslaafiya ka dhigtay dalka horumarsan kana wax soo saar badan dalalkii deriska la ahaa ee bariga Yurub. Wuxuu ahaa dhulweyne awood ballaaran oo ka muuqday Yurub, kana mid ahaa derbiga adag ee nidaamka Shuuciyadda oo xilligaas si aad ah ugu baahaysay caalamka. Bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1939, waxaa talada Yugoslaafiya la wareegay nin lagu magacaabo Josip Broz Tito oo xukunka haystay ilaa uu ka dhintay sanadkii 1980. Tito waxa uu ahaa hogaamiye adag, midnimada Yugoslaafiya ay ku weyn tahay, sidoo kalena tixgelin ka haystay qowmiyadaha ku wada midaysan magaca Yugoslaafiya. Intii uu xilka hayay, way adkayd in la sameeyo dhaqdhaqaaq la isir nacayb, isfuquuq xagga diimaha ah. Xukunkiisu Tito ayaa bilow iyo dhammaad u ahaa jiritaanka Yugoslaafiya. Sanadkii 1980, markii uu geeriyooday, waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo qowmiyadeed oo abuuray inay kala furfurmaan dowladihii ku midaysnaa Yugoslaafiya. Waxaa soo ifbaxay kooxo gooni-goosad ah oo doonaya inay ku hoos baxaan dalladda guud. Burburkii Sofiyeetka ayaa keenay in dalalkii Yugoslaafiya ay raaceen jid la mid ah midkii Sofiyeetka. Sanadkii 1991, Slovenia ayaa ka dhawaaqday inay ka goosatay Yugoslaafiya. Waxay qaateen tallaabo la mid ah. Croatia iyo Macedonia iyaguna dhankooda waxay qaateen tallaabo la mid ah. Wax diidmo ahna lama kulmin dalalkii kale ee midowga ku haray, laakiin waxay wax walba isbedeleen sanadkii 1992 markii Bosnia ay bilowday dhaqdhaqaaq gooni-goosad ah. Shacabka Bosnia ayaa afti 99% ah ugu codeeyay gooni-iskutaagooda. Go'aankan ayaa waxaa diidmo adag kala hor yimid hogaamiyihii Yugoslaafiya oo sidoo kale ahaa hogaamiyaha Serbia oo ahayd qayb ka mid ah midowga oo gaar u ahayd qowmiyadda Serbiyiinta. Hogaamiyihii Serbia ayaa shacabka Bosnia ugu hanjabay inuu baabi'in doono haddii ay isku dayaan inay ku go'aan Yugoslaafiya. Serbiyiintu waxay gacanta ku hayeen awoodda dowladda oo ay ugu muhiimsanayd ciidanka ay sanadoodu u dhammaystirnayd, halka Bosniyaankuna ahaayeen shacab aan wax awood ah haysan. Hanjabaadda Serbiyiinta ayaa abuurtay cadowtinimo dhex martay Serbiyiinta iyo Bosniyiinta. Reer Bosnia waxay ku adkaysteen go'aan-isutaagooda,
waxaa qarxay dagaal ka dhex bilowday labada qowmiyadood. Dagaalkani ayaa markii hore ku saleysnaa khilaafaad siyaasi ah, balse markii dambe waxa uu isku beddelay dagaal ku saleysan qowmiyado iyo isir nacayb ku dhisan kala duwanaanta diimaha. Serbiyiintu waxay soo qaateen qaacido ah in la laayo dhammaan ragga Bosnia, kooda yar iyo kooda weynba, haweenkana la kufsado, sidoo kale in la gubo magaalooyinkooda. Waxaa la xasuuqay dhammaan dadkii Bosnia. waxaa magangelyo u dalbadeen xero ay lahaayeen qaramada midoobay. Serbiyiintii ayaa xeradii dagaal ku galeen dhammaan wixii rag ahaa oo ay ku jiraan carruur si aan kala reebid lahayn. Dumarkiina waxaa loo geystay kufsi iyo tacadiyo kale oo aad u argagax badan. Dadkii lagu laayay xeradan ayaa lagu tilmaamaa 8,000 ilaa 12,000 oo qof oo u badan rag.